shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir miyay mudnaayeen in lagu daabado xaalka waqtigan ay ku jiraan iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ku takrifalaya awoodii lagu talagalay in uu ugu adeego shacabka heerka musuqmaasuqa uu gaaray iyo cadaalad darrada oo xargaha goosatay. warbixintan ayaan ku eegi doonaa haddaba haddii cadaalad darro musuqmaasuq guryahaagii la baabi'iyay oo la burburiyay muuqaalkan sii gudbi leegare sheergare oo la sii wadaag asxaabtaada kale cadaaladda u heli maalin ayaa imaan doonta oo adiga aad u baahan tahay in lagu hadlo muuqaalkan meel fog gaarsii. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Mungaab wuxuu xafiiska u fadhiyaa in dhaqaale uu ka sameeyo dhiiga shacabka gobolka Banaadir. marka sidaas aan leeyahay dad badan oo canshuur laga qaaday ayaa hadda indhahooda ku arkay in aan waxba loogu qaban, wadooyinkii aan la dhisin, sidoo kale waxbarasho aan la siin caruurtooda, iska badaa in ay helaan daryeel caafimaad. intaasi oo dhan waxay dhacayaan iyada oo waqti kooban xafiiska uu joogo duqa Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Mungaab. waxaana warbixintan kugu sheegi doonaa dhaqaalaha uu sameeyay iyo daaraha waqtigan uu dhistay iyada oo la leeyahay waxa uu qaatay naanees ah ciilqabe gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Mungaab. falanqaynta warkeena farta ruux kuma fiiqno fal xumaan dhalinayo weligeedba ma faafin fikradii shacabkeenaan faaqidaad ku qornaa sheekadii filowaa iyo musuqiina fidneeyaan feejignaan bulshadeena taladii ugu fiican ku siinaa fursadooda iyana wayna fahmaano furitaanka su'aasha jawaabtaan ka filaynay fariid bay u baxshaano alla firfircoona rukunkeena sida ay inoo xaqiijiyeen ila ku dhow oo lagu kalsoonaan karo gudoomiyaha gobolka Banaadir. intaasi oo dhan marka ay dhaceen waxaa soo degdegtay in xilka qaadistiisa durbaba miiska la saaro, la qoro magaca gudoomiyaha gobolka Banaadir ee cusub, laguna lifaaqo xilka qaadistiisa. waxaa la sugayaa oo kaliya marka uu dalka ku soo laabto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka dibadiisa safar u aaday. warqadii way qoran tahay, waa la saxiixay, waxaa dhiman oo kaliya in la faafiyo oo si toos ah warbaahinta loola wadaago. dad badan ayaa inta uu joogo gudoomiyaha gobolka Banaadir lagu tagrifalay awood ahaan. qaar ayaa guryo iyaga ay lahaayeen laga saaray, qaar ayaa sarbeeb iyo marmarsyo looga dhigtay in wadooyin ay ku jireen. intaas oo dhanna madaxda dowladda wax kama qaban, laakiin hadda ay ku soo aaday in xilkii laga qaado Mungaab. sidee ayaad adiga ka ahaan u aragtaa waqtigan ku tagrifalka awoodeed, jawoodfalka, dhaqaalihii oo la lunsaday, awoodii oo shakhsiyaad gaar ah gacanta loo geliyay, iyo Mungaab oo la leeyahay wuxuu intaas oo dhan uga faa'iideystay isaga oo ciishoon oo ciil qaba sida dadka qaar ay leeyihiin. ma ahan wax aniga aan leeyahay, laakiin dad ku dhow ayaa xantaasi iyo sheekadaasi haya oo nala wadaagay. Mungaab dad ku dhow waxay sheegeen in gurigii uu ka deganaa isgoyska Sanac ee Muqdisho waqtigan uu ka dhigay dhowr biyaano oo xitaa uusan deganin guri noocaas oo kala ah. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, gudoomiyaha golaha baarlamaanka, ra'iisul wasaaraha, intaas oo dhan wuxuu ku sameeyay iyada oo xafiiska joogo muddo aan ku sinnayn 8 bilood. haddaba lacagihii laga aruuriyay shacabka gobolka Banaadir oo qaarkood qasab looga qaaday, guryo la dumiyay oo lagu sheegay inay ku jireen wadooyin, ayaa intaas oo dhaqaalo oo dhan laga sameeyay. way adag tahay marka in saxaafadda madaxa bannaan ee gobolka Banaadir ka howlgala ay sheegaan oo ay kor u qaadaan codkooda. waxaase laga yaabaa qaarkood in afka la qabtay, qaarkoodna lacago laaluush ah hoos laga siiyay. haddaba yuu soo dhaweystay gudoomiyaha gobolka Banaadir? wuxuu soo dhaweystay rag dhalinyaro ah oo warkiisa qaadanaya, lacagaha yar ee la siinaya fiirsanaya, laakiin awood aan u lahayn in qalinka iyo sidoo kale buug isku kor saaran ay runta shacabka ugu shaqeeyaan ku xariiqaan. iyaga oo fiirinaya intaas oo kaliya ayay baraha bulshada ku faafiyaan warar been abuur ah oo lagu leeyahay gobolka Banaadir waxaa ka socda shaqo aad u fiican, iyo sidoo kale warar lagu leeyahay duqa Muqdisho waa uu guuleystay oo waxa uu dhisay
wadooyin qurux badan iyo sidoo kale wax uu bixiyaa daryeel caafimaad. intaas oo dhan waa xayisiin iyo qar iska tuur la rabo in waqtigan laga galo shacabka Soomaaliyeed oo soo jeeda. haddaba mala gaaray ayaa is leedahay waqtigii Mugabe lagu horwareejin lahaa shacabka gobolka Banaadir ee dhibanayaasha u ah iyada oo uu hal sano joogin xafiiska, lacagahoodii gurtay, awood maroorsi uu sameeyay, laakiin shacabka loo sabiro muuqaalo been abuur ah oo la rabo in iyaga lagu beerjilicsado, lacaga looga qaato. laakiin waqtigan inta dulmiga tirsanaysay, inta cadaalad darrada tirsanaysay, inta xaqoodii la duusiyay, inta iyagoo shaqaalo sax ah xafiiska laga saaray laguna bedelay rag dhalinyaro ah oo khibrad iyo aqoon aan u lahayn shaqada dowladda hoose ee gobolka Banaadir. aragtidaada qaybta hoose noogu reeb. anaga waxaan ka hadlayno iyo waxaan soo bandhigana ma ahan aragtideena waa warar xaqiiqo ah oo aan ka soo xiganay lagana soo dusiyo xafiiska gobolka Banaadir iyo Villa Soomaaliya. halkan waxaan u joogaa markaa in aan cadaalad darrada ka hadalno, in wax waqtigaasi jira ee xaqiiqada aan sheegno, haddii dalka uu horumar ka jirin aan faafino, haddii wax ay hoos u dhacaanna in aan halkan ka ifino. waxaan u hadlayno waa adiga iyo qof kale oo kula mid ah oo cadaaladiisii waayay, gobolka Banaadirna uu ku joorfalayo markasta. السلام عليكم.